Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhegeystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan kusoo dhawaada mar kale iyo casharkeenii Chemistry Secondary Form 1. Casharkeenii maanta wuxuu ka bilaabanayaa Chemistry Laboratory. Waa laabka chemistryga. Chemistryga waa experimental science. Waa aqoon tijaabo ku saleysan. Sidaa daraadeed waa in uu leeyahay qol aad iyo aad loo naqshadeeyay oo loo yaqaano laboratory. Waa inuu leeyahay laboratory maxaa yiraahdaa where chemicals are stored. Waa meesha kiimikooyinka lagu keedsho and experiments are conducted. Tijaabooyinkana lagu sameeyo. Neatness and cleanliness is very important. In la hagaajiyo meesha qolka iyo nadaafadda in lagu dadaalo aad iyo aad bay muhiim u tahay. Very important in a laboratory. Chemistry laboratory equipments, qalabyada laabka chemistryga looga baahan yahay ayaan halkan kaga hadlaynaa. Laboratories require a variety of equipment and instrumentation. Laboratoryyaashu waxay u baahan yihiin qalabyo kala duwan iyo qalabayn to run tests and research, si tijaabooyinka loo sameeyo iyo baaritaanada. Apparatus are various tools and equipment used by scientists working in the laboratory. Apparatus waxaa la yiraahdaa waa qalabyo kala duwan oo loo isticmaalo laabka, ayna isticmaalaan saynisyahanada laabka ka shaqeeya. They must be clean and checked. Waa inay nadiif noqdaan qalabyada laabka. Waa in la hubiyaa before use intaan la isticmaalin to be safe, si qofku u nabad galo. And should be washed. Waa in la dhaqaa and stored, la keydiyaa carefully, si taxadir leh. After use, marka la isticmaalo ka bacdi, to avoid contaminating your chemicals. Kiimikooyinka in aad ku wasakhowdo ama ay ku wasakhayaan si looga fogaado. The laboratory equipment is organized into 7 different groups. Qalabyada laabka yaala waxaa loo habeeyaa ilaa 7 nooc ayaa loo habeeyaa. Safety tools waa qalabyo badbaado ah. Measuring tools, qalabyo wax lagu cabiro. Heating tools, qalabyo wax lagu kululeeyo. Observing tools, qalabyo wax lagu fiiriyo. Holding and grabbing tools, qalab wax lagu qabto iyo qalabyo wax lagu raro ama lagu dhaqdhaqaajiyo. Cutting tools, qalabyo wax lagu jaro. Filtering tools, qalabyo wax lagu filter gareeyo. Intaas waxa weeyaan qalab ay u kala baxayaan. Mid baynu uga hadlaynaa. Safety tools, qalabyada badbaadada ah oo qofka badbaadadiisii iyo ay tahay. Are materials that are used to keep the lab settings safe. Waa walxaha laabka yaala ee safeka ku siinayo weeyaan, adigu aad ku badbaadayso. Waxaa u baahan tahay safety goggles, eye wash station, lab coat, safety shower. Waxaa u baahan tahay meel isha lagu dhaqo haddii indhuhu wax kaaga faniinaan. Lab coat aa u baahan tahay, maxaan ku raahdaa jacket oo laabka loo isticmaalo. Safety shower aa u baahan tahay,
shower u baahan tahay shower lagu dhaqdo lagu qubaysto aad aragteen. Fire extinguisher dabdamiya u baahan tahay. Protective gloves ama gacmo gashi u baahan tahay. Measuring tools qalabyo wax lagu cabiro ayaa loo baahan yahay laabka inay yaalaan iyaguna gaar baa loo habeeyaa. Materials used to measure different measurements waa walxa lagu cabiro. Thermometer aa loo baahan yahay, heerkulbeeg. Beaker aa loo baahan yahay, weel oo lambaraysan 10 milliliter 100 milliliter waxyaabahaas ku qorqoran si wax ugu cabirato. Graduated cylinder dhululub aa u baahan tahay. Erlenmeyer flask la yiraahdo Erlenmeyer. Volumetric flask mid oo volume-ka lagu cabiro. Observing tools qalabyo wax lagu fiirsho ayaa laabka yaalo. Materials that allow you to have a look at substance waxaad ku fiirinaysaa and different materials iyo shayasha kala duwan. Qalabyada wax lagu fiiriyo waxaa ka mid ah microscope shay baar baad u baahan tahay. Microscope slide-yada dhalooyinka oo shay baarka loo isticmaalo wax lagu baaro. Watch glass ayaa u baahan tahay dhalada wax lagu fiiriyo. Petri dish saxankaas la yiraahdo petri dish u baahan tahay. Magnifying glass weynaysa u baahan tahay. Intaas waa observing tools. Qalabyada laabka waxaa kaloo loo habeeyay heating tools qalabyo wax lagu kululeeyo ayaa jiro. Materials used in the process of heating kululeynta loo isticmaalaa sida benzene burner oo kale, benzene gubaha. Spirit lamp ayaa u baahan tahay. Cutting tools qalabyo wax lagu jaro ayaa loo baahan yahay. Cutting tools are materials that have a sharp edge walxo af leh which can penetrate or divide things oo shayasha kala qaybin kara ama jari kara. Sida waxa u baahan tahay dissecting scissors maqasyo, scalpel aa u baahan tahay iyo wixii la mid ah. Holding and grabbing tools qalabyo wax lagu qabto iyo qalabyo wax lagu qaado ayaad u baahan tahay. Holding tools maxaa la yiraahdaa? Materials that are used to keep things in the right position. Holding tools waxaa la yiraahdaa waa walxo loo isticmaalo in walxaha bartoodii lagu haayo shaygan markaad rabto inaad meel ku hayso. Qalabyada loo isticmaalo ayaa la yiraahdaa holding tools. Grabbing tools waxaa la yiraahdaa materials that are used waa walxa loo isticmaalo to transfer substances shay inaad ka qaado meel from one place to another place meel kale aad geyso. Waxaa ka mid ah qalabyadaas test tube-ka la yiraahdo baaritaanka loo isticmaalo waa dhalada dhiigga lagu shubo. Laabyada lagu isticmaalo test tube aa u baahan tahay. With test tube brush oo brushkiisii wata. Test tube rack ayaa u baahan tahay godadka la sursuro tubeska. Test tube holder midka qabta ayaad u baahan tahay iyo qalabyo kale sida forceps pinsaad u baahan tahay. Tongs maqasaad u baahan tahay. Tweezer ayaa u baahan tahay. Filtering tools qalabyo wax lagu filter gareeyo ayaa jiro. Filtering tools waxaa la yiraahdaa materials waa walxo through which a fluid passes oo dareeraha uu dhex mari karo to separate out matter in suspension si loo kala sooco waxyaabaha milanka dibadda ka ah si looga saaro. Yani shayyaal biyo ah iyo shayyaal adka ah marka la kala saarayo filter ayaad u baahan tahay. Waxaa u baahan tahay separating waxaa ka mid ah separating funnel dubaalad ayaa u baahan tahay.
filter paper warqad wax lagu filter gareed u baahan tahay, funnel dubalad baad u baahan tahay. halkaas waxaa ku dhamaaday qalabyada oo laabka loo isticmaalo. waxaan galaynaa hazard signs, calaamadaha halista ah inaad barato. waxaa jira calaamado oo caalamku isku fahmay oo sheegayo meesha lagu dhajiyo inay yihiin halis ama khatar. Any substance that can cause risk to public safety, wax walba u sababi kara halis ammaanka dadweynaha ama badbaadada dadka or environment ama deegaanka is called an hazardous material baa la yiraahdaa, waa walax halis ah. waxaa jira marka calaamado caalami ah oo cadeynayo waxyaabaha halista ah, kuwaasoo loo yaqaano hazard signs. hazard signs maxaa la yiraahdaa? calaamadaha halista ah oo khatarta sheegaya are recognizable symbols designed to warn about hazardous or dangerous materials. waa calaamado la garowsan karo ama la aqoonsan karo, kuwaasoo la naqshadeeyey oo habaysan si looga digo waxyaabaha halista dadka. shaygaasha lagaga digayaa locations, barta ama meelaha halista, objectives iyo wixii la mid ah sida electric current, qulqulka danabka kale, korontada, poisonous, sunta kale, radioactivity, waxyaabaha oo radioactivity-ga ah. waxaan kusoo gabagabeynaynaa chapterka 1 laboratory safety rules, tallaabooyinka ee badbaadada ee laabka markaad joogto. waxaa jiro tallaabooyin in aad qaado. laboratories require great care, laabyadu waxay u baahan yihiin daryeel weyn since they are flammable, maadaama ay jiraan oo laga helayo meeshaas waxyaabo oo hurayo ama holcayo, combustible, waxyaabo gubanayo, explosive, kuwa qarxayo, corrosive, waxyaabo oo daxal ah, toxic, waxyaabo samaysan, and biohazard materials, waxyaabo bani'aadamka halis ku ah ayaa laga helaa meeshaas oo dhan. to avoid, saa uga fogaato marka serious accidents, shilalkaas oo joogtada ah, and save yourself, nafsadaada aad u badbaadiso, you need to follow standard safety rules. tallaabooyinkan waa inaad raacdaa. 1. dress properly for work in the lab. markaad laabka ka shaqaynayso si sax ah inaad u labisato ayaa la rabaa. wear enclosed shoes, kabo xiro sida kabaha buudka oo kale, and lab coat, oo waa inaad xirataa sidoo kale coatka laabka loo isticmaalo, jaakada ama apron, waxa wasakhda ka ilaaliya waa inaad xirataa. avoid wearing shorts and skirts, buumooyinka iyo goonada iyo inaad xirato iska ilaali. marka dhar isku days ah ayaa la gashtaa ama coat. never eat, marnaba waxa ku cunin, drink, waxa ku cabin, or smoke in the laboratory, laabka dhexdiisa waxa ku sigaar ku cabin, due to the risk of the ingestion of chemical poison, halis baa ka imaanaysa. cell phone usage, loud talking and running and horseplay in the laboratory are strictly forbidden. telefoonka iyo buuq iyo orodka isciirsiga laabka dhexdiisa kulli waa mamnuuc. never remove chemicals or other harmful materials from the laboratory, marna kiimikooyin iyo waxyaabo halis ah laabka ha ka qaadan oo dibadda ula bixin. always take off gloves and wash your hands before leaving the laboratory. intaad laabka ka tagin waa inaad iska siibtaa gloveska, gacmahana aad dhaqataa. know the locations of emergency eye washes and safety showers and how to use them. waa inaad garataa meelaha emergency-ga loogu talagalay
gargaarka degdega ah sida meesha isha lagu dhaqo, showerka, iyo sida loo isticmaalo inaad barataa. If a chemical gets on your skin or into your eye, haddii kiimikooyin ay ku taabtaan maqaarkaaga iyo ishaadaba, rinse with warm Allahu Akbar. rinse your qoy baa la yiri with warm biyaad ku qoynaysaa oo ku dhaqaysaa for at least 15 minutes 15 daqiiqo ugu yaraan. Report any accident immediately to your teacher. Shil kastoo aad dareento macalinkaaga ku wargeli. Be aware of evacuation exits and fire extinguisher locations and its usage. waa inaad ka warhaysaa meelaha debdemiyaasha iyo sida loo isticmaalo. Always follow the teacher's instructions and never work alone in the laboratory. mar walba waxaad raacaysaa awaamirta macalinka uu ku siiyo oo laabka kugu hagaya. marnaba keligaaga ha iska shaqaysan oo shaqaha qaban laabka waxaan lagu dirin, faraha la gelin. dhageystayaal daawadayaal, chapterkeennii 3aad iyo chapterkeennii 1aad iyo casharkeennii 3aad halkaas ayuu ku idil yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.